kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo qaadaya tallaabo culus kadib markii uu 3 qodob oo aad u culus u ballan qaaday saraakiisha iyo ciidamada militariga badbaado qaran. haddaba miyay qodobada qaar fulintooda ku adkaan doonaan Ra'iisul Wasaare Roble? wararkii ugu dambeeyay militariga badbaado qaran oo lagu wado inay saacadaha soo socda isaga baxaan magaalada Muqdisho dibna ugu laabtaan xiriyahoodii. maxay siyaasiyiinta mucaaradka ka yiraahdeen heshiiskii laga gaaray in militariga badbaado qaran laga saaro magaalada? gudoomiyaha midowga murashaxiinta oo war culus ka soo saaray tallaabadaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa. wararkeena kalena waxaa kamid ah maxaa ka soo baxay kulamo siyaasadeed xalay ka dhacay Muqdisho, xogta kulan kala gaara oo dhex maray Ra'iisul Wasaare Roble, madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo madaxdii hore ee dalka ayaan idiin soo gudbin doonaa. iyo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo hal codsi u diray midowga murashaxiinta kadib kulan uu la qaatay. waa maxay fariintii cajiibka ahayd ee uu u gudbiyay murashaxiinta Ra'iisul Wasaare Roble? qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax khamiisa 6 bisha shanaad ee May sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane. fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ballanqaad u sameeyay ciidamada qabsaday qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ee ka hor yimid muddo kororsigii dhawaan loo sameeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse markii dambe laga laabtay. ciidamadan oo ka kala tirsan militariga, booliiska iyo xoogo kale ayaa fadhiya qaybo badan oo kamid ah degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Kaaraan iyo Cabdicasiis, waxaana heshiis lagu gaaray xalayto. isla markaana heshiiskaasi uu ka dhacay hoyga madaxweynaha Galmudug uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kadib markii ay yeesheen guddigii arintaasi loo soo saaray oo Ra'iisul Wasaaraha la kulmay. ballanqaadyada uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ee keenay heshiiska magaalada looga saaray ciidamadan ayaa kala ah isla markaana qaarkood la isleeyahay waa ay adkaan doontaa in ciidamadaasi ay helaan xuquuqda sida mushaarka, darajooyinka iyo xilalka, wax saameyn ku yeelanin qalalaasihii ka dhaca magaalada Muqdisho, inuusan jiri doonin aargoosi, in loo raacdo dhacdooyinkii caasimadda, in si gaar ah loo xalliyo saraakiisha leh duruufaha gaarka ah sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan. wararka la isla dhex marayo ayaa waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka shaqeynayo sidii darajooyinkiisa loogu soo celin lahaa taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John. qodobka adag in guddi loo saaro lagu ballamay ayaa ah sida laga yeelayo xilka qaadista iyo darajo ka xayuubintii lagu sameeyay saraakiisha qaarkood sida taliyihii booliiska gobolka Banaadir Saadaq John oo xilkiina laga qaaday, sidoo kalena dhammaan darajooyinkii ciidan ee uu lahaane laga dhigay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagu tallaabadaasi qaaday. qodobkan ayaa ah midka ugu culus oo la isleeyahay Ra'iisul Wasaare Roble ma fulin doonaa. dhinaca kale waxaynu eegaynaa waxyaabihii ay ka yiraahdeen heshiiskii laga gaaray magaalada Muqdisho ee midowga murashaxiinta kadib markii heshiis ka kooban 12 qodob laga gaaray xiisadii toddobaadyaddan ka taagneed magaalada Muqdisho. waxaasi soo taraya soo dhaweynta iyo bogaadinta qodobada ay ku heshiiyeen Ra'iisul Wasaare Roble iyo midowga murashaxiinta. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdiraxmaan Odowa iyo Mahad Salaad oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa aad u soo dhaweeyay qodobadii lagu heshiiyay shalayto, iyagoo ku taliyay in sida ugu habboon loo dhaqan geliyo heshiiskaas oo xal u noqon kara xiisadii maalmahan ka jirta magaalada Muqdisho. ugu horeyn xildhibaan Odowa ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook ku yiri heshiiskii iyo qodobadii xalayto lagu heshiiyay waa soo dhaweynaya waana bogaadinaya dhammaanteen mar haddii muddo kororsigiisa qiiray aan nabadeynta u istaagno oo aan u dhagarnuglaano ayuu yiri. dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isaguna yiri waxaan bogaadinayaa heshiiskii laga gaaray xiisadii ka dhalatay muddo kororsigii fashilmay. kalsooni ayaan ku qabnaa adkaysiga geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya. mahad alle ayaa leh kadibna shacabka Soomaaliyeed iyo intii u istaagtay muddo kororsiga. sidoo kale xildhibaan Mahad Salaad oo qayb ka ahaa guddigii ka soo shaqeeyay heshiiskii shalayto laga gaaray ayaa waxa uu sheegay in isaguna uu si weyn u soo dhaweynayo. heshiiskaas waxaa lagu gaaray hoyga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa hoyga uu Muqdisho ka degan yahay kulan afro waxa uu sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Sheekh Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyaha midowga murashaxiinta
isaguna waxa uu ka hadlay heshiiskaasi lagu gaaray magaalada muqdisho. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii lagu gaaray magaalada muqdisho ee horseedaya in magaalada laga saaro ciidamadii ee ka dhashay amaba ka gadooday muddo kororsigii loo sameeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sheekh Shariif ayaa ugu baaqay in kadib heshiiskaasi gacmaha la isqabsado isla markaana gacmaha la iskula qabsado sidii looga gudbi lahaa marxaladan adag ee kala guurka ah iyadoo wax kasta lagu bixinayo dib u heshiisiin, isqancin iyo isku tanaasul. dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay socdaan qabanqaabadii ugu dambeysay oo ciidamada militariga badbaado qaran looga saarayo magaalada caasimadda ee Muqdisho. wararkan helayno ayaa waxay sheegayaan in saacadaha soo socda lagu wado in militariga badbaado qaran qaab ay dowladdu ku qanacsan tahay looga saaro magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaa ololahan wada iyo qaabkii magaalada Muqdisho ciidankaasi looga saari lahaa guddigii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu arintaasi u xil saaray in ay ka soo tala bixiyaan. saacadaha soo socda ayaana la filayaa in ciidamadaasi magaalada Muqdisho ay isaga baxaan. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan warqaad TV-na oo aad naga daawanaysaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa uu xalayto hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kulan afura ugu sameeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, midowga murashaxiinta iyo xubno wasiirro ah. kulankan waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo xasilinta magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidoo kalena kulankan waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sida laga marmaanka ay u tahay qabsoomidda doorashooyin la isla ogol yahay oo si nabdoon ku dhaca. dowlad goboleedka Hirshabelle waxay soo dhaweynaysaa shirka uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda isugu yeeray ee dowlad goboleedyada, waxaana mar walba ay diyaar u tahay ka shaqaynta danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada ee maamulka ee Hirshabelle. Hirshabelle ayaan iyada horey looga baranin inay qabato kulamo noocan oo kala ah maadaama inta badan madaxweynaha Hirshabelle lagu dhaliilo in isagu uu kulamada ka qayb galo. ugu dambeyntii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa hal arin ka codsaday midowga murashaxiinta mucaaradka ah. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo hadal kooban ka jeediyay kulankii shalayto ay ku heshiiska ku gaareen isaga iyo midowga murashaxiinta ayaa murashaxiinta aad uga codsaday in ay si dhow ugala shaqeeyaan arrimaha doorashada. waxa uu sheegay in hawsha doorashada ay aad u culus tahay kaligiisana uusan ka shaqayn karin, sidaasi daraaddeedna uu muhiim u yahay garab uu ka helo murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada Soomaaliya. dhammaan murashaxiinta madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaarihii hore waxaan idinka codsanayaa doorashada aniga kaliya inaan la igu hadlayn, dhammaanteen mas-uuliyaddana aan wada qaadano, wayna wada saaran tahay mas-uuliyaddu inaan si cadaalada doorasho idinkugu maamulo ayaad ii dirsateen, marka gacan ayaan idinkaga baahanahay ayuu yiri ra-iisul wasaare Rooble. sidoo kale shacabka magaalada Muqdisho ayuu ra-iisul wasaare Rooble ka codsaday inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska oo uu sheegay in hadda kadib si gaar ah loogu xil saaray amniga caasimadda. waxaan hay-adaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed amraya inay ilaaliyaan amniga qof kasta oo muwaadin ah, inay ilaaliyaan amnigayga, amniga madaxweynaha, kan murashaxiinta iyo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin oo qof dhib loo geysan ayuu hadalkiisa ku sii daray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. sidoo kale ra-iisul wasaare Rooble ayaa murashaxiinta waxa uu ka ballan qaaday in qof gaar ah uusan xigsan doonin oo doorashada uu si xalaala u maamuli doono. qalbigiina khayr u sheega, laakiin gacan ayaan idinkaga baahanahay, aragiina yaana waayin ayuu hadalkiisa ku sii daray. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in aysan jiri doonin qof ciidan ah oo lagu xadgudbo, sidaa daraaddeedna uu farayo ciidamada gudaha caasimadda difaacyada uga jira in ay guryahoodii ku noqdaan. qofkii ciidan ah laguma xadgudbi doono, ciidanku mucaarad iyo muxaafad kalama laha, marka waxaan farayaa in ay dib ugu noqdaan xeryahoodii oo ay shacabka ka difaacaan argagixisada al-shabaab ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isagu si aad ugu celceliyay inay muhiim tahay in magaalada Muqdisho ay nabad noqoto islamarkaana militarigii gadooday ay isaga baxaan, inkastoo arrintaasi heshiis laga gaaray laguna wado in saacadaha soo socda ay ciidamadaasi isaga baxaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.